Assalaamu calaykum. Wixii ka horreeyay 1960kii magaalada Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabtu waxay ahayd lama degaan saxraa qaaxila meel aad u cimilo kulul adeegyada nolosha ee casriga ahna ay ku yaraayeen laakiin mar qura ayaa nolosha magaaladaasi iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee UAE ay isbedeleen kadib markii 1960kii uu dalkani ku yaala galbeedka Asia ama waqooyi bari ee gacanka Carabta uu helay shidaal waqtigaas oo ku aadaneed 11 sano ka hor intii aysan Imaaraadka Carabtu ka xuroobin Ingiriiska sanadkii 1971kii laakiin inta aan gudagelin barnaamijkeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka gambaleelkana furo si aad ula socoto barnaamijyadeena cusub ee aan soo gudbin doono hadduu Ilaahay idmo shidaalkii ugu horreeyay Imaaraadka Carabtu wuxuu nasiib u yeeshay inuu dibadda u soo saaro sanadkii 1962kii xilligaas oo ahayd markii UAE ay bilowday inay saliidda dhoofiso laakiin isbeddelka weyn ee ku dhacay magaaladii lama degaanka ahayd ee Dubai oo haatan isu beddeshay magaalada ugu dabaqyada dhaadheer adduunka waxaa ka dambeeyay madaxweyne ku-xigeenka UAE sidoo kalena ah xaakimka ka taliya magaalada Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum waxa uu Dubai ka dhigay mid ka mid ah caasimadaha ugu magaca dheer uguna fiican caalamka ilaa heer dadka dunida ku nool ay Dubai u maleeyeen inay tahay caasimad ama wadan laakiin labadaasi midna ma ahan Dubai waa magaalo ka tirsan 7 magaalo ee waaweyn ee uu ka kooban yahay Imaaraadka Carabtu kuwaas oo kala ah Abu Dhabi, Dubai, Asharqa, Quwayn, Fujairah, Ajman iyo Ras Al Khaimah magaalo sanado ka hor ahayd lama degaan waxaa maanta ku yaala cirwareeno ama dabaqyada ugu dhaadheer adduunka sida Burj Khalifa oo dhulka ka sarreeya 830 mitir iyadoo caalamku uu weli la yaaban yahay daartan ugu dheer daaraha ku yaala magaalooyinka kala gedisan ee adduunka ayaa misna Sheikh Mohammed bin Rashid uu ka sii daray oo wuxuu haatan magaalada uu maamulo uu ka dhisayaa taawarka astaanta u noqon doona magaalada Dubai kaas oo dhulka ka sarreyn doona 1300 mitir dabcan taawarkaasi ayaa noqon doona dhismaha ugu dheer dunida Dubai waa halka ay ka socoto mashaariicda dhismaha ee ugu badan adduunyada waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu horeeya ee sameynaya kobaca dhaqaalaha ee ugu badan caalamka way jirtay waqti ay Dubai si weyn ugu tiirsaneyd dhaqaalaha uga soo xarooda shidaalka hase yeeshee haatan kuma tiirsana lacagta batroolka oo marka loo eego dakhligeeda sanadlaha ah waxay ka noqonaysaa 5% waxaana Dubai ay noqotay xarunta ganacsiga adduunka dadka ku nool Dubai 15% oo kaliya ayaa Carab ah 85 kale ee tirada dadka ku nool magaaladaasina waa shaqaale ajaanib ah oo ka shaqeeya UAE kuwaas oo Dubai gaarsiiyay heerka ay maanta taagan tahay in ka badan 60% shacabka ku nool Dubai waa Hindi, Pakistaaniyiin iyo Bangladesh kuwaas oo shaqooyin kala gedisan ka haya dalkaasi sanadkii 1990kii waxaa Dubai ku yaalay hal dhisme oo aad u dheer oo ah nooca loo yaqaano skyscraper ama naatixaad as-saxaab kaas oo ahaa Dubai World Trade Center balse maanta Dubai waxay leedahay 148 daaraha dhaadheer ee daruuraha ku dhow iyo 917 fooq oo iyagana xagga cirka u dheer waxaa jira waxyaabo cajiib ah oo Dubai oo qura laga helo sida in booliska Dubai ay isticmaalaan baabuurta casriga ah ee qaaliga ah isla markaana aadka u dheereeya sida Aston Martin 177, Bugatti Veyrons, Mercedes SLS AMG, Lamborghinis, Audi R8, Bentley Continental GT iyo Bentley Bentayga iyo qaar kale oo badan ciidamada badda ee Dubai ayaa iyaguna sida kuwa beriga oo kale waxay isticmaalaan doomo aad u dheereeya oo aadan ka baxsan karin sida X-Cat Class Rescue Boat Dubai ma jecla inay ku jirto kaalinta labaad waxayna mar walba jeceshahay inay dhinac walba oo nolosha ah ka gasho kaalinta koowaad tusaale Dubai Mall waa suuqa laga dukaamaysto ee ugu weyn caalamka waxaana gudihiisa ku yaala 1200 oo dukaan goobaha caanka ah ee Dubai waxaa ka mid ah Palm Jumeirah waa jasiiradda ugu weyn adduunka ee uu bani aadam gacan ku sameeyay waxaana muuqaalkeeda loo ekeysiyay geed timireed weyn waa adduun guuraya oo leh hoteelo caalami ah maqaayado xeeb lagu damaashaado beerta xayawaanada shineemo diskooyada habeenkii muusiga lagu garaaco supermarketyo waaweyn iyo goobo u gaara inay ku raaxaystaan dadka maalqabeennada ah hoteelka qura ee adduunka ku yaala ee 7 xidigla ah 7 Stars Hotel waa Burj Al Arab oo ku yaala magaalada Dubai kaas oo dhismihiisu qaatay 5 sanadood waxaana uu ka kooban yahay 202 qol iyadoo halkii habeenna sariirihiisa kuwa ugu qiimaha jaban lagu seexdo
$24,000. Sheekh Mohammed bin Rashid waxa uu doonayay inuu Dubai ka dhiso beerta ugu weyn adduunka ee Disneyland ee ay dadku ku raaxaystaan, taasoo xitaa ka weyn Disneylandka California ee waddanka Mareykanka. waxaana qorshihiisan aadka u weyn uu u bandhigay shirkadda Disneyland, laakiin nasiib darro Disneyland waxa ay diiday codsiga xaakimka Dubai. sidaa darteed wuxuu isna dhistay Dubailand oo ay ku baxday $64.3 bilyan, waana goob dalxiis oo aad u qurux badan. Dubailand waxa ay 2 jeer ka weyn tahay beerta Disney World oo ku taala gobolka Florida ee waddanka Mareykanka, waxaana soo booqda dad gaaraya 200,000, waana mashruuc sare u qaaday dalxiiska Dubai. magaalada Dubai waa magaalo la isugu faano dhaqaalaha, waxaadna arkaysaa iyadoo gawaarida magaalada socota ee qaaliga ah ay shirka hore ka saaran yihiin xayawaano kala gedisan oo la dhaqdo sida libaaxa, shabeelka iyo haramcadka. kaba soo qaba inaad doonayso inaad dahab soo iibsato, uma baahnid inaad suuqa aado, ee Dubai waxaad ka helaysaa mashiin ATM ah oo aad lacag gelinayso kadibna ku siinaya dahab. waana magaaladii ugu horreysay ee laga hirgeliyo barnaamijkan la magac baxay Gold to Go ATM. guud ahaan caalamka waxaa haatan ku yaala ilaa 50 mashiin oo noocan oo kale ah oo aad dahab ka iibsan karto. maadaama Dubai ay la mid tahay magaalooyinka ku yaala saxaraha, cimiladeedu aad bay u kulushahay, sidaa darteed waxaa goobaha basaska laga hirgeliyey meelo lagu sugo basaska oo mukeyfyo leh. haddii aad awoodana lacagtaada ayaad dhiibanaysaa, qoraxdana halkaas ayaad ka gelaysaa. tareenka dhulka hoostiisa mara ee Dubai Metro waxaa durbadii la furay 2009kii laga mamnuucay in lala raaco kalluunka ama qof kalluun sitaa uu raaco, taasoo noqotay mid si weyn loola yaabay. shaqaalaha metroga ka shaqeeya ayaa kontaroolaya dadka galaya maxadadaasi, iyadoo aan loo ogoleen in qof kalluun wata uu gudaha u galo. Dubai waxay leedahay dekedda ugu weyn uguna mashquulka badan bariga dhexe, waana dekedda Jabal Cali oo ah dekedda 9aad ee ugu mashquulka badan adduunka, waxaana la dhisay dhammaadkii 70-meeyadii. magaalo yar oo loo dhisay shaqaalaha ayaa ku dhex taalla dekedda Jabal Cali, waxaana degan 300 oo shaqaalaha dekedda ah. sidoo kale konteenarada ay ku jiraan shixnadaha kala duwan ee lagu kala beddesho dekedda Jabal Cali ayaa sanadkii ka badan 14 milyan oo konteenar. haddii aadan jeclayn traffic jamka ama wadooyinka cariiriga ah ee magaalada Dubai ee saacadaha badan gawaaridu ku xayirnaanayaan oo xoogaa lacagna aad leedahay, waxaa lagu sameynayaa in baabuurkaaga lagugu qaado diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarka, iyadoo kadibna si fudud lagugu geynayo halka aad rabto. mar la weydiiyey Sheekh Mohammed bin Rashid qorshaha uu ka damacsan yahay magaaladiisa Dubai, wuxuu yidhi, waxaan doonayaa inay Dubai noqoto kaalinta koowaad, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada sare, dhanka caafimaadka, guryaha, iyo inay nolol wanaagsan helaan dadka reer Dubai. What do you want this place to be? I want it to be number 1. Not in the region, but in the world. What do you mean number 1 in the world? In everything. High education, health, housing. Just making my people the highest way of living. waxaa kaloo la weydiiyey xaakimka Dubai, maxaad mar walba u doonaysaa inaad hesho waxa ugu weyn ama waxa ugu dheer? wuxuu ku jawaabay, oo maxaan u heli waaye? haddii aad adiga taa ku haysato magaalada New York ee Mareykanka, maxaa inagana noo diidaya inaan halkan ku haysanno? Why do you want everything to be the biggest, the tallest? Steve, why not? Why not? If you can have it in New York, what can we have it here? waxaa mar kale la weydiiyey, laakiin maxaad u degdegaysaa? waayo dadka intooda badan waxay isku dayaan inay hawsha noocan ah ku qabtaan waqti dheer ilaa iyo inta ay nool yihiin. adigana 5 sannadood ayaad doonaysaa inaad ku samayso. wuxuu Mohammed bin Rashid ku jawaabay, waxaan doonayaa inay dadkaygu nolol fiican ku noolaadaan haatan, inay aadaan iskoolada ugu fiican, inay helaan caafimaad heer sare ah, mana ahan inay arrintaasi sugaan 20 sannadood. Why are you in such a hurry? Most people would try and do all of this in a lifetime, not in 5 years. I want my people to live better life now, to go to the high school now, to go to the good healthcare now, not after 20 years. isku soo wada duubo, magaalada Dubai waa magaalo aan kaftan oolin oo nin walba uu jeebkiisa ka ciyaarayo. haddii aad mar booqatay magaalada Dubai ama aad haatanba ku nooshahay oo lacag fara badanna aad kharash garaysay, fadlan nagula wadaag qaybta commentiga si aan u ogaano wixii ka raacay magaalada Dubai.